baarlamaanka Soomaaliya uu kalsoonida kala laabtay oo uu shirgudoonka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ra'iisul wasaarihii xukuumadii shaqada ka tagaysa ayaa looga dooday go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu kalsoonida kala laabtay xukuumadda howsha fulinta haysay mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa kulankaasi kadib shir jaraa'id uu qabtay wariyaasha waxa uu sheegay in go'aankii baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu kalsoonida kala noqday xukuumadii uu hogaaminayay in uu u hoggaansan yahay si danta ummadda Soomaaliyeed loogu heliyo markii aynu ka doonnay dhinacyo badanna aynu ka eegnay waxa aanoo aad uga mahadnaqahaya golaha xukuumaddu ay mar labaad ila garteen ilana ayideen in ay gar ahayd inaanu annagoo meelo kale oo kala duwan wax ka eegin wadada kaliya oo noo habboonayd ay ahayd danta dalka awgiis iyo maslaxadda qarankaba inaanu taageerno go'aankii golaha ana aqbalo sidaasuna waa sidii 3 bisha aanu hadda ka hor ku soo saaray warqadan aan kula qaybsaday gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynahada go'aankii xukuumadda aan madaxda ka ahay ee ka soo shaqeynaysay dalkeena ilaa Oktoobar ilaa iyo November hal sano oo buuxda sidaas ayuu noqday waxaanu ku nimid si sharci ah oo dariiqi caadiga ah waafaqsan waxaana waqti shaqadeennii ay ku gabagabowday oo aynu ku aqbalay si sharci ah ra'iisul wasaare Shirdoon ayaa shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay garab istaagii muddadii sanadkii la soo dhaafay ee xukuumaddiisu shaqada waday isagoo dhanka kale ku taliyay in xukuumadda dalka uu yeelan doono in ay u horseedo degnaansho iyo hiigsiga Soomaaliya ay leedahay 2016 waxaan halkan rabaa inaan uga mahadnaqo ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda aan madaxda ka ahay xubnaheeda oo dhan iyo institutionska Soomaaliyeed ee dhammaan shaqadii quruxda badnayd oo muddadii halka sano ahayd aanu u soo haynay sidii naloo ku fududeeyay sidii naloo kugu garab istaagay sidii naloo kugu dhiiriyay waxaan isla aad baan uga mahadnaqaynaa dariiqaasina waa dariiqa dawladnimada dhabta ah kalsooni dhisidda iyo isgarabtaaggu waa kan loo maro isla ummadda Soomaaliyeed iyo institutionska dalka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa xukuumadda soo socotana in sidaa loo garab istaago loo dhiirigeliyo yaan ka codsanayaa xukuumadda soo socota haddii alla idmo oo sida madaxweynuhu ballan qaaday degdeg loo soo prime ministerkeeda loo magacaabi doono waxaan u rajaynayaa waxsan waxaan ilaahay ka rajaynayaa hawlaha badan oo u yaala inuu u fududeeyo goolka siyaasadeed oo 2016 ee wadankeena u yaala oo ah in lagu gabagabeeyo in dastuur la gaaro si xor ah ummaddu u doorata ugu codaysay iyo doorasho qof ah in la gaaro dhawaan ayaa laga wardhowrayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu soo magacaabo sida dastuurka uu dhigayo muddo 3 cisho haddii aad doonayso guri haddaad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikado casriya iyo waliba beerta nasashada oo aad u balaaran iyo guryaha irida weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay intaba waxa kula diyaaray shirkadaasi waxa kale ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kasto shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo waliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda waliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan